waalidiinta Soomaaliyeed kale waxaan ku baraarujinayaa in ay awlaadooda wax baraan ayagana wax la bartaan sidaan oo kale Abshir oo kale tusaalaan ay u soo qaataan antana oo igala qalin jabiyay iskuulka aabe kani waa Aaba Bashir Siyaad Xalane da'diisu waa 45 sano ku nool degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud waxa saakay u soo ilaaday imtixaanka qaranka oo ay qaadaysay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare kumanaanka arday ee galeysay imtixaanka qaranka waxa uu kaga duwanaa in uu imtixaanka la galayay curadiisa Miski Bashir Siyaad oo iyaduna dareemaysa farxadda ay leedahay marka aad wax isla baranaysaan waalidka hal marna aad u fariisataan imtixaan qaran halkani waa jaamacadda Caynul Hayaad oo ku soo gabagaboobay imtixaanka qaranka waxaana xilli hore oo subaxii ah halkan yimaada Aaba Bashir Siyaad iyo gabadhiisa si ay u galaan imtixaanka qaranka waxaan la taaganahay Bashir Siyaad iyo Miski Bashir Siyaad oo ah gabar iyo aabeed waxaana maanta si wada jira ugu soo dhamaaday imtixaanka qaranka oo ay qaadayso wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare Miski iyo waliba aabeed maanta ay u soo gabagaboobay imtixaanka waxaana ay aad ugu faraxsan yihiin in maanta uu soo gabagaboobay imtixaanka Aaba Bashir Siyaad ayaa ka warbixiyay wadada uu u soo maray sidii uu soo gaari lahay heerkan uu haatan joogo magacaygu waa Bashir Siyaad Xalane gabadhana waa curadaydi waaye Miski Bashir waaye waxaan ku faraxsanahay maanta inaan si wada jir ah iskuulka aan kaga wada qalin jabino form 4ka maanta imtixaankii uu soo gabagaboobay dawladda federaalka ah waxaan kaloo ku faraxsanahay manhajkii koobaad inaan ku bilownay asagana aan ku qalin jabino ardadii ku bilowday qalin jabinay aan ku noqon dareenkayga aad iyo aad u faraxsanahay maadaama aan aniga curadaydi aan isla qalin jabinay aad iyo aad u faraxsanahay dareenkayga aad ugu weyn yahay shucuurtayda insha Allah waalidka kale tan waxaan insha Allah kula balamayaa oo anigoo kale taa in ilmahooda wax la bartaan sidoo kale tan ay ula qalin jabiyaan baadin curadaydi waa iyada iskuulka waxaan ka baxay aniga adalti ayadana waxay ka baxday almaamuun marka sidaas ayaan u wada qalin jabinay Caynul Hayaad maanta ku soo dhamaatay inaan ku qalin jabino aad baan faraxsanahay maanta Miski Bashir Siyaad oo wajigeeda laga dheehan karay farxadda maalinkan oo kale ayaa ka warbixisay dareenkeeda maanta maadaama uu aabaheed la galayo maalinkii shanaad imtixaanka qaranka milaa magacaygu waa Miski Bashir Siyaad oo maanta ka baxayso iskuulka almaamuun oo imtixaankii form 4 ugu soo dhamaaday maanta jaamacadda Caynul Hayaad taariikhdu ku beegantahay 6 Juun farxadeeda aad iyo aad lama soo koobi karo adana farxad labaad waxa ku faraxsanahay in maanta aabay oo shalay iyo maanta way garab taagnay oo maantana ay qalin jibiyo imtixaanka form 4ka marka farxadeeda lama soo qiyaasi karo waxaan u dirayaa dhamaan guulan wada rajeynaynaa in aan toobtaanka ka soo wada muuqano anaga dhamaanteen halkaana dhamaan waxa uga mahad celinayaa macallimiintii heerkan soo gaarsiiday qaasatan waxa u mahad celinayaa ustaadkayga ustaad Macallin Cabdiqaadir Jaamac Tarbi Miski Bashir Siyaad ayaa waalidiinta Soomaaliyeed kula dardaarantay in ay waxbarashada ubadkooda la aadaan sida Aaba Bashir oo kale marka farxadeeda lama soo qiyaasi karo marka waalidiinta Soomaaliyeed kale waxaan ku baraarujinayaa in ay awlaadooda wax baraan ayagana wax la bartaan sidaan oo kale Abshir oo kale tusaalaan ay u soo qaataan maantana oo igala qalin jabiyay iskuulka aabe anoo ka dhameeyay form 4 Soomaaliya mowduuca ugu weyn ee maanta jira ayaa ah in imtixaanka qaranka oo u soo idlaaday arday badan oo Soomaaliyeed Cabdiraxmaan Ciise Qalamed Shabeelle Gurceel